magacaygu waxa la yiraahdaa aadan sadiiq maxamed waxaana gudoomiyaha guddiga garsoorka ee baarlamaanka Soomaaliya waxaan la socdaa wafdiga oo hogaaminaya mudane Sheekh Usmaan Jawaare oo ah speaker Soomaaliya aad baan u mahadsantahay magacaygu waa Saciid Maxamed Cali gudoomiyaha guddiga beeraha xoolaha horumarinta reer miyiga iyo kheyraadka badda waxaan ku jiray wafdiga soo gaaray Oslo labada sitimaan sameynaya ka daraasad sameynaya habka baarlamaanada adduunka u shaqeeyaan iyo baarlamaanka Soomaaliga ee la soo gaarsiin rabo wafdigaas oo hogaaminayo gudoomiyaha golaha shacbiga Jawaare sidaa darteed waa maanta iyo Oslo iyo war cusub يا ما سبت أنا كسر دوّا أوصل كسر دوّا ساعة عادي أدبان عرفتي عن وقف حسنا هذا نوصل دوّا أوصل أدبان وقوم عند عنينا دولة النرويج رنتي قابك arrimaha Soomaaliya aad iyo aad ugu danaynaysiinay oo caawiso sax runtii waan ku faraxsanahay wax kale oo ku faraxsanahay dhamaan shacbiga Soomaaliyeed oo ku sugan Norway qaabkay interested ugu yihiin arrimaha Soomaaliya sidoo kale okay waliga Norway ma timaadey may waa maalinkii ugu horeysay sax aad baan ugu faraxsanahay la kulma kamid ah jaaliyadnada Soomaaliyeed ee ku sugan waddanka Norway oo runtii aad u danaynaya inay la kulmaan xildhibaanada Soomaaliyeed oo hadda ku ah martida waddanka Norway okay mahadsanid nidaam walaal waxa kamid tahay guddiyada baarlamaanka Soomaaliya ee jooga Norway magacaaga noo sheeg kartaa aniga magacaygu waa Khadija Maxamed Diiriye waxaan ahay gudoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka haweenka iyo arrimaha bini'aadanimada qurbaha ma joog jirtay marka hore كسنة Soomaaliya ku nool واو ما شاء الله سودو كسودو أصلا ورعوس ميديا كوري جنسا قاركميدا جودية كسعودة جودية برلمانك كسعودة برلمانك Soomaaliya يا waxaa suurta gashay hadda in ay la kulanto mid kamid ah walaal magaca noo sheegi kartaa marka hore magacaygu waa Cismaan Aadan waxaan ahay gudoomiyaha guddiga wadooyinka gaadiidka dekedaha iyo airporada aad baan kulley website-kan war cusub aan ugu mahadcelinaynaa booqashada oo soo gaaray walaal magaca noo sheegi kartaa iyo guddiga ka mid tahay بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد magacaygu waxa weeye maxamed Masamo Faysal waxaan ahay gudoomiyaha guddiga caafimaadka waxbarashada shaqada shaqaalaha dhalinyarada isboortiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya